kulanti wanaagsan daawaday halkan waa Abraham Show muuqaalkan kooban waxaan idinkugu soo gudbin doonaa taariikhda nololeed ee la u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday magaalada London ee xarunta dalka Britain. korse daawadayaal haddii ay tahay markay kugu horeysay channelkan aad aragto fadlan subscribe sidoo kale like saar haddii muuqaalkan aad ka heshay share gareena si aad ula wadaagto asxaabtaada sidoo kalena qaybta hoose ee commentiga wixii ra'yi aad qabto noogu reeb mahadsanid. bishii hore ee Maarso 26 sanadkan 2020 ayaa la dhigay isbitaal kadib markii uu ku dhacay viruska COVID-19 ama coronavirus sida uu xilligaas xaqiijiyay wiilkiisa oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC. Nuur Xasan Xuseen oo loo yaqaan Nuur Cadde waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1938 wuxuuna ahaa 82 sano jir. General Cabdulqaadir Cali Diiriye Subxaayo oo isla soo shaqeeyay Nuur Cadde wuxuu yiri wuxuu ahaa nin aad qaali u ah oo maamul yaqaan ah oo shaqadiisana garanaya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka tacsiideeyay geerida Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waxa uu yiri waxaan tacsiye u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Nuur Cadde oo ku geeriyooday London. waxaana la uga baryayaa inuu naxariista jana ka waraabiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana samir iyo iimaan uu Ilaahay ka siiyo. sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa u tacsiideeyay ehelada iyo qaraabada uu ka dhintay Allah u naxariistee Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. waayihiisii xilka ra'iisul wasaarnimo Nuur Cadde oo muddooyinkii ugu dambeeyay deganaa magaalada London ee dalka Ingiriiska wuxuu xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qabtay 22 bishii November sanadkii 2007. xilkaas waxa uu magacaabay madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo hogaaminayay dawladii ku-meel gaarka ahayd. wuxuu xilkaasi kala wareegay Cali Maxamed Geedi oo iscasilay 9 bishii Oktoobar ee isla sanadkii 2007. madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo siyaasad ahaan ay kala aragti duwanaayeen Nuur Cadde wuxuu dhamaadkii 2008 sheegay in uu kala diray Nuur Cadde iyo golihiisii wasiirada. mooshino iska soo horjeeday oo la geeyay baarlamaanka waxaa codka ku guuleystay Nuur Cadde wuxuuna xilka madaxweynaha u tartamay doorashadii Djibouti ka dhacday horaantii 2009 ee uu ku guuleystay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxbarashadiisii iyo noloshiisa guud waxa uu ku qaatay waxbarashada wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba. kuliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda ayuu wax ku bartay macadka sare ee booliiska adduunkana waxbuu ku soo bartay wuxuuna ku takhasusay sharciyada la xiriira baarista dambiyada ilaalinta canshuuraha iyo shuruucda caalamiga. Nuur Cadde Ilaahay u naxariistay wuxuu shaqadiisii ugu horeysay ku bilaabay sarkaal canshuuro sanadkii 1958 2 sano ka hor intii Soomaaliya aysan qaadan xorriyadda. wuu dallacay ilaa uu ka gaaray heerar sare oo la xiriira hoggaanka booliiska. wuxuu sidoo kale la shaqeeyay hay'ado booliis oo caalami ah. wuxuu ahaa nin aqoon sare leh wuxuu wax ku soo bartay Talyaaniga. wuxuu ahaa nin afgaaban oo dabeecad macaan ayuu yiri Subxaayo. kadib markii uu ka baxay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku biiray jaamacadda Rome. wuxuu labadaas jaamacadood ka bartay culuumta shuruucda sida ay xaqiijiyeen dad badan oo isla soo shaqeeyeen. kadib burburkii wuxuu u wareegay hay'adaha caalamiga ee dhinaca gargaarka wuxuuna la shaqeeyay hay'ado caalami ah sida hay'addii bisha cas ee Soomaaliya SRCS. sanadkii 1976 ayuu ka mid noqday xubin mutadawwaca hay'adda bisha cas ee Soomaaliyeed ka hor inta aan loo dooranin inuu noqdo xubin guddiga fulinta hay'addaasi. haddeen u guda galno howshiisii dhinaca ciidanka booliiska Soomaaliya Allah u naxariistay Nuur Cadde intii uu ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya wuxuu ka gaaray darajada gaashaanle sare. xilal kala gedisan ayuuna ka soo qabtay qaybaha kala duwan ee booliiska Soomaaliyeed. wuxuu taliye ku-xigeen ka soo noqday xafiisyada qaybta ciidanka xafiiska qaybta siyaasadda iyo abaabulka iyo qaybta xiriirka caalamiga ee Interpol booliiska adduunka. sanadkii 1976 ilaa sanadkii 1983 waxa uu ahaa madaxa xafiiska tababarada iyo qorsheynta ee ciidanka booliiska Soomaaliya. General Cabdulqaadir Cali Diiriye Subxaayo oo isla soo shaqeeyeen wuxuu yiri wuxuu ahaa nin diiwaan hay'ihii booliiska oo dhan ah. taliyaha ayuu la shaqeyn jiray booliiska isaga la'aantiisa maba socon karin. wuxuu ahaa saraakiishii ugu aqoonta badnayd booliiska mid ka mid ah. sanadkii 1986 Nuur Cadde markii uu ka soo noqday wadanka Talyaaniga halkaas uu ugu maqnaa tababar muddo 2 sano oo ku saabsan culunta takhasuska baarista canshuuraha iyo shuruucda caalamiga
waxaa loo magacaabay ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee maxkamadda badbaadada si uu markaasi ugu tala bixiyo dambiyada la xiriira canshuuraha iyo maamul xumada. sanad kadibna waxaa loo magacaabay xeeraalyaha guud ee maxkamadda badbaadada Soomaaliya. haddaba maxaa lagu xasuusan doonaa? waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah heshiiskii lagu soo dhisay dowladii Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha uu ka ahaa ee lagu qabtay Jabuuti iyo kaalintii fiicneed ee uu ka qaatay, ayuu yiri Subxaanyo oo isla soo shaqeeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. wuxuu kaalin wanaagsan ka qaatay inay dhacdo midayn iyo isu imaatin iyadoon dagaal dhicin, in nabadgelyo wax lagu xaliyo ayuu hadalkiisa ku daray. si gaar ah booliiskii uu ka tirsanaan jiray waxaa ka tagay nin qiimo leh oo wax badan ka soo qabtay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka tacsiideeyay geerida Nuur Cadde wuxuu yiri waxaan ka wada shaqeynay arrintii dib u heshiisiinta ee 2008 ilaa 2009. wuxuu ahaa nin qiimo leh oo nabadda aad u jecel. nabadda iyo dowladnimada ayuu xilkiisa ra'iisul wasaare miiska u saaray, danta guud ayuu ka hormariyay tiisa shakhsiga ee geedi socodka nabadda iyo dhismaha dowladnimada, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo boggiisa Facebook uga hadlay geerida Nuur Cadde. Ilaahay ha u naxariistee. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.